horay u dhaheen ciro waa Soomaali weyn way cadeyn waayeen markaas waxaas way iska soo guraysaa ay sahra halgan iyo mujaahidiinta ay u yihiin kuwa la mid yihiin waxay caadiystaan inay yiraahdaan mucaaradku waa qaradubis sahra halgan in adeerka muuse difaaciisu ma inaad in adeerka ciro ku sheegto qof qaradubis xukuumadda waqtigeedu gabagabada yahay waxay caado ka dhigtay inay 24 hours walahi rooda cabdi muuse dad badan baa horta u jawaabay dad badan baana hadalada yirtiri ka falceliyay umana jawaabiyo iyo ornoog waxay ka soo jeedaan dad aqoomeed iyo ornoog waxay ka soo jeedaan oo ay la haybihiin madaxweynihii dimuqraadiyadda Soomaaliland Daariyaale walaal siyaasadda Soomaaliland hadda waxay ku jirtaa iska marxalad doorasho iyo kala guur iyo isbedel dawladnimo ay ku jirtaa koonkan aynu ku noolahay ama geeskan aynu ku noolahay ama Soomaalida kale waxaynu kaga duwanahay siyaasadeenu ma aha mid xanaf leh ma aha mid colaad leh ma aha mid xabad leh waa mid qalin isku dhiiba hadana waxa rajeynaya si nabada inay doorasho madaxtooyo ku dhacdo si nabada in loo kala guuleysto si nabada in dawladuhu u kala wareegaan ayaa rajeynaya insha Allah walaal xukuumadda joogtay uu hogaaminayo Biixi ay sahra halgan iyo mujaahidiinta ay u yihiin kuwa la mid yihiin waxay caadiystaan inay yiraahdaan mucaaradku waa qaradubis waxay caadiystaan inay qof sharax madaxweyne oo 70% cod dhakadiisa saaran tahay inay ku sheegaan qof qaradubisa waana waxyaabaha qarankeena iyo dhalinyarteena ceeb ku ah oo qarannimadeena ceeb ku ah oo siyaasadeena ceeb ku ah sharax madaxweyne anigu aan wado ee dadka ka iibinaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi xukuumadda waqtigeedu gabagabada yahay waxay caado ka dhigtay inay 24 hours yiraahdaan waxaan hadallo deeqaafa aan meel laba ka soo jeesnayn marka sahra halgan waxaan kula sahra halgan wuxuu oran lahaa sahra halgan in adeerka muuse difaaciisu ma inaad in adeerka ciro ku sheegto qof qaradubis heer Soomaaliland waa mid doorashada markay iska soo dhawdahay marxalad doorasho la kala galo xanaftu way iska jirtaa waxaas waxba kama jiraan horay u cadeyn waayeen oo dhaheen ciro dad baxa marka keenay way cadeyn waayeen horay u dhaheen ciro waa Soomaali weyn way cadeyn waayeen markaas waxaas way iska soo guraysaa muhiimadu waa in doorasho dhacdo doorasho madaxtooyo waa inay dhacdaa dalkana waa in la badbaadiyaa inta yar ee hadhayna waa in la mideeyo oo la ilaaliyaa shucuurtooda iyo qarannimadooda walahi rooda cabdi muuse dad badan baa horta u jawaabay dad badan baana hadalada yirtiri ka falceliyay umana jawaabiyo kamana falcelinayo iska gabadh dhalinyaro iyo siyaasiyada marka irduuf siyaasadeedu baa iska hayo iska xilli jahwareer baa lagu jiraa qof baba hadalka inta ku soo dhacdo buu oranaya laakiin waxaan leeyahay siyaasiyiintu waxa ka tagaan taariikh siyaasiyiintu sharkooda ha ilaaliyaan siyaasiyiintu dhalinyarada ha ilaaliyaan siyaasiyiintu taariikh baa ka qormaysay hadallada ay fagaarayaasha ka oranaya ha ka ilaaliyaan xanafta iyo waxa ku ah taariikh xumada ee sumcadeeda wax yeelis intaas ma ka oranaya wadaacad walaal buuniyo ormooga waa inaan soo xasuusto aanay ahayn buuniyo ormooga waxay ka soo jeedaan gobol aynu jecelahay buuniyo ormooga waxay ka soo jeedaan dad aqoomeed iyo ornoog waxay ka soo jeedaan oo ay la haybihiin madaxweynihii dimuqraadiyadda Soomaaliland Daariyaale marka wuxuuna oran lahaa heer awdal xumaan iyo dhibaato noo gelin mayso ornooga hadal uu hudheelada ka yiraahdo iyo hadal uu buuni kursi ku joogo marka waxaan leeyahay buuni iyo ornooge dadka isbedel baa ka dhacay saaxiibkii muusana waa tagaya kuraasta aad fadhidaana rag baa la wareegay buunina wali lama ansixina waxaan leeyahay buuniyo waa inoo baarlamaanka wala xisbiga wadani waa isbedel doon xisbiga wadani waa doorasho doon xisbiga wadani doorasho madaxtooyo bay doonayaan horena u doonayaan maxamed xaashina waa nin siyaasi iyo waa ninka ururka ka wata iska aragti mucaaradnimo wayna midayn kartaa oo waxu male laakiin se anagu qolada isbahaysiga hadaan nahay qolada mucaaradka iyo qolada isbedel doonka waxaan wadnaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo ku-xigeenkiisa Ambassador Maxamed Cali oo Cabdi marka maxamed xaashina aragtidiisa siyaasadeed buu wataa anaguna taayadun baan wadanaa anagu doorasho doon baan nahay maxamed xaashi doon ma nihin cid kale doon ma nihin doorasho doon baan anagu muusun baan doonaynaa inaan kursiga ka dhacsano muusun baan ku jahaysan wax kale oo siyaasadda maxamed xaashi iyo siyaasadda ciro ka dhaxaysa aan ahay mucaaradnimo oo dalka laga badbaadinayo muuse mooyaane wax kale ma ogaano suuqun baan ugu imaaday warkaan maalinta 40 February-ga iska maalmin ay gaaladu macno weyn u sameysay laakiin inagu dad Soomaaliya oo muslimiin baynu nahay
dad jacayl iyo kalkacal ku dhashay waynu nahay waa iska maalin jacayl maalin aad loo xuso oo loo weynaysiiyo maaha maalin inagu waajibtay oo inaynu u dabaaldegno maaha laakiinse waa iska maalin farxadeed iyo maalin iska jacayl dhalinyarta waxaa leeyahay aad u xuso inta warowba aanan jacaylka aad aanan waxba uga aqoonin oo aanan waqtiba aanan siinin halgan kale iyo hawl kale aan isaga jiro laakiinse xamso jacaylku waa wax jira oo waxaynu ku dhalanay oo waxa dadkeenu ku dhashaan oo waxa lagu wada nool yahay waa iska naxariis wax qaybteed nolosheena qaybun ka ah wax leeyahay jacayl